Assalaamu calaykum dhammaan mucaashaqiinta xiiseysa Konami ama eFootball soo dhawaada meel walba aad joogtaan. Maantay iyo muuqaal cusub waxaan idinla wadaagi doonaa waxyaabaha maalinta Khamiista ah oo beri ah si official ah markaasi loo keeni doono. Waxaad iga barateen maalin walba oo Arbaco ah in aan idinla wadaago waxyaabaha officialka ah ama sida saxda ah loo keeni doono. Ciyaaryahan ha noqdo ama koonis free ah ha noqdo ama waxyaalo kale ha noqdaan. Maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago ciyaaryahanada sida officialka ah ama saxda ah loo keeni doono maalinta beri ah. Fadlan haddii aad halkan la soo gaartay waxaan ku xasuusinayaa inaad muuqaalkan like inoo sarto kadibna channelka subscribe noo dhahdo. Waayahay haddaba like-ta waxay ka qayb qaadanaysaa in muuqaalka uu meel fog uu gaaro. Haddaba hanaga iloobin inaad muuqaalkan like saarto. Badanaa muuqaalada waa daawataan like-tana waad ka ilowdaan. Haddaba like saar haddii aadan saarin. Waayahay waxaan ku hormaraynaa dhankan iyo ciyaaryahanada officialka ah loo keeni doono waxaa ka mid ah Vinicius Junior iyo Mohamed Salah ayaa Play of the Week-yada sida rasmiga ah loo keeni doono oo la xaqiijiyay in maalinta beri ah aysan baaqan doonin. Labadan ciyaartooy oo markaasi u horeeyo Vinicius Junior iyo Mohamed Salah ayaa si official ah beri u arki doonta. Dhanka kale Mohamed Salah wuxuu ku imaan doonaa 96 wuxuuna gaari doonaa 100 laga yaabaa 101 xitaa inuu gaaro wuxuuna ku imaan doonaa sida aad jeedo. Dhanka kale Vinicius Junior waxaa laga yaabaa asina inuu ku imaado 97 wuxuuna gaari doonaa ilaa iyo 102. Dhanka kale waxaan isla eegi doonaa Isbaanishkan in la keeno 4 qof hal free ah in hal mar free lagu siiyo aad markaasi ku tuurato 4 mid ka mid ah aad markaasi soo qabato Isbaanishkan la filaya. Waayahay dhanka kale European Club Championship-kan waxaa si rasmi ah loo hubaa ninkan oo 3 gool dhaliyay iyo Luis Diaz. Haddii aan Luis Diaz ku hormarno wuxuu ku imaan doonaa 95 wuxuuna gaari doonaa 105 ayuu gaari doonaa Luis Diaz. Dhanka kale haddii aan eegno waxaa la filayaa English clubskan in la keeno oo markaasi Man United ah. Dhanka kalena waxaa la filayaa in asoo Italian clubs ah oo Napoli ah markaas inuu imaado ayaa la filayaa. Dhanka kale waxaa la filayaa Spanish asoo oo Barcelona ah markaasi in la keeno ayaa u badan tahay ama la filayaa. Dhanka kale waxaa la filayaa national team ayagoo dhan in la isku soo kulmiyo oo hal free ah lagu siiyo oo aad tuuranayso oo markaasi France ah in la keeno. Dhanka kale waxaa la hadalhayaa in 3 aybig aad markaasi ku bedelan doonto hal aybig kala bedelashadaas in la keeno ama saaxiibkaaga aad markaasi ciyaaryahanada aad janji ku sameyn karto oo ka soo qaadan karto ayaa la filayaa. Ciyaartooyda sida officialka ah loo keeni doono oo la filayo Play of the Week-yada waa kuwan. Dhanka kale ciyaartooy waxaa jirto 50-50 ah in la keeno in la keenin ay u badan tahay. Rafael Leao ayaa markaasi u horeeyo. Dhanka kale waxaa ku xigo ninkan oo Shiineyska ah oo Lee Kang lahayo ayaa ku xigo naadigiisa dhan asi kaligiisa la filayaa in laga keeno waana ciyaartooydan 50-50 weeye. Badanaa lama hubo. Waxaa ku xigo Darwin Núñez ninkan 95 ku imaan doonaa wuxuuna gaari doonaa 100 waana ciyaartooyda 50-50 ah ama la filayaa in la keeno. Ciyaaryahankan Bruno Fernandes aad iyo aad ayaa ay u badan tahay in la keeno laakiinse ciyaartooyda 50-50 ah ama 50-50 ah in la keeno in la keenin ay u badan tahay ayuu ku jiraa. Dhanka kale waxaan isla eegi doonaa ciyaaryahankan Maximan ayaa asina la filayaa dadka wuxuu ku jiraa 50-50 ah ama 50-50 in la keeno iyo in la keenin ay u badan tahay. Intaas ayaan jeclaystay inaan maanta idinla wadaago. Haddii aad dhammaadka muuqaalka aad nala soo gaartay waxaan ku xasuusinayaa inaad muuqaalkan like saarto channelkana aad markaasi subscribe noo dhahdo muuqaalkana aad share gareyso si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida adigoo kaleeto. Waayahay aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin inta subscribe inoo saartay inta inoo saarinba. Waxaan filayaa in goordhow aynu gaari doono 300 oo subscribe ah. Waa mahadsantihiin.